iyo toddobaad kale iyo barnaamijkeennii Xoggaal aynu toddobaad walba ku soo qaadano barnaamijka ganacsiga alaaba waxaad ka daawataan Bidhaan Media. barnaamijka maanta maxaa marti inoogu ah Farduus Axmed Cumar oo ka mid ah ganacsatada gobolka Sool kuna haysata koofeer ama sayloon. Farduus maanta barnaamijkan waxaan ugu soo marti qaadnay sidaan uga xog wareysano barnaamijyada ugu horeyn Farduus Axmed Cumar ku soo dhawow Bidhaan Media oo maanta wareysiga ganacsiga ka qabanay. waan mahadsantahay Xamdi Cabdilaahi Xamdi Qaran marka hore marka labaad waan idin mahadcelinaya adiga TV-gaaga Bidhaan Media waan ku soo dhawahay xabibti markale Farduus barnaamijka ganacsiga wadi ku kala jirnaaye waxaad ka timiyeen dalka dibadiisa gaar ahaan dalka Sacuudiga waxaad furtay koofeer al-Khwaad la yiraahdo ma la oran karaa koofeerka aad sameysay fikirka ma carabtad kala timi mise waa fikir kugu dhashay waad istiri gobolkaaga kula laabo maadaama aqoontii ama xirfadii aad baratay. Okay Xamdi hadii aan kaaga warramo arrimaha ganacsiga wixii igu dhaliyay koofeerkan in aan furo markii hore waxaan ka tagay dalkayga run ahaantii waxaan ahaan jiray dadka xiiseeya aan qurxinta dumarka walow aanan markii haysan qalabkiisa ama qaabkii loo mari lahaa misna waan jeclaan jiray markii aan wadanka carabta tagay waxaan qabsan waayay shaqooyinka laga shaqeeyo oo ah shaqooyin adag marka waxaan joogay muddo joogay waxaan firfiriyay shaqooyinkii alxamdulillah rabbil caalamiin waxa ay soo baxday shaqadan waxaan ka shaqeyn jiray habla saaxiibo aan nahay habla aadka ugu xidhanahay shaqooyinkada sidaan u badnaa anoo aad u xiisan jiray hablihii oo shaqooyinkooda sidaan u badnaa ayaa is keenay marka waxaan sameeyay shaqadii baan galay waan bartay marka aan bartay waan ku shaqeeyay muddo waxaan jeclaystay maadaama xirfado kala duwan iyo hablihii noocyo duwan oo qurux badan ay noqonayaan gobolkaygii iyo maxay uusan lahayn in aan xirfad la noqdo oo gobolka la imaado anoo jecel mar walba inaan gobolkayga ku noolaado taas waxay ku liftay in aan Bitselenkon halkan la imaado aan ka furo maxay heetay waqtigii aan furayay caqabado badan baan igala soo kulmay oo xataa faamiligu ma san raali ka ahayn wax qalad loo arkeen balse anigu waan ku adkaystay alxamdulillah rabbil caalamiin hadda waxaan joogaa waqti ay xataa faamiligayga waalidiintooda igu taageerayaan anigana aan ku faraxsanahay waana hirgashay hamigi aan lahaa oo dalkayga inaan horumar sameeyo waliba gobolkan la soconaado oo gobolka aan ka soo jeeday markii hore ka tagay taas bay igu dhalisay inaan sameeyo. Farduus aad baad mahadsan tahay waxaad sheegtay markaad ganacsiga furaysay in caqabado badan ay ka hor yimaadeen caqabadahaas oo kaaga yimid faamligaaga iyo asxaabtaada ma la oran karaa caqabadihii way sii jiraan si caqabadihii maxaad is leedahay ba iska bedelay. والله والمحسن دارت حمدي مر والبان كاغا مهد علينايا wareysigan aad hortiga qaadasid oo midan aad u xiiseynay run ahaantii marka hore man aan ku arag gobolkeena wax san oo kala ganacsiga dadka u dardargelinaya ama u wareysanayo marka xitaa hadii aan kaaga warramo marlabaad kugu soo celiyo dhibaatooyinkii caqabadihii naga qabsan jiray ana faamiligeena maadaama magaaladii aysan ku badnayn shaqooyinkan oo ay ku yaraayeen run ahaantii markii hal koofeer miyaa ka jiray magaalada mise laba koofeer oo mid si baxayo waxa dhacday in khaladaad loo arkay maadaama koofeerada ay ku yar yihiin habliina ayna xirfadan lahayn khaladaad oo soconayn oo kale hablaha qudooda in qaababka aan anagu wax u hirgelinayno rama in aan u shaqeyno ay safahansan ku jacsanayno kugula doodayaan marka waqtiga u shaqeynaysa xitaa ay qudooda ku oranayaan habkan san hayga dhigin oo waxa weeyaan waxyaalahan ma fiicno ma qurux badna quruxdii ay safahmaynin marka faamiliga hadaan soo noqdo faamiligaygu runaantii waxaan imaadaa waqti dambe waxaan dhisaa aroosyo waxaan sameeyaa xaflado baadiyo waxaan dhacaa in afartan baxyo dhalashooyin waxyaalaha marka aan qabanayno habluhu waxay soo shaqataan waxa weeyaan maalinkii cilaankooda loo mariyaa habeenkina waxa loo mariyaa makeup-ka waqtiga makeup-ka waan ku raagnaa keegag baan sameynaa waxa dhici karta xafladaas in 12 hadda doontaan ama kowda laga soo noqdo saacadahaas kale waalidiinteeda caqabada ay gala soo kordhay si ay u yiraahdaan maxaa waqtigan aad u soconaysaa oo ay u arkaan waqti aan fiicnaan haboonayn inuu yahay waxa weeyaan taana caqabadii waqti badan waan u soo dulqaatay waan soo soconay ma sha Allah hadda waxa ay heer aan gaarnay in la yiraahdo hadii aydan iman kareen championshiina jooga oo walintii waa shaqadan way arkeen maadaama dhalinyaradii aan fahansinay oo ay la qabsadeen oo wixii ay noqotay wax maxay tahay public ah inay waalidiintii aysan wax dhib hadda naga iman dhalintii oo kale hablihii awal hore dhibaatadu naga haysan jirtay oo aan waxyaalaha aan dabci jirnay makeup-ka markaan u marinayno uu far badan yahay noocyada loogu mariyo
noocyada caqabadaha naga iman jiray wayna la fahmeen iminka ayaga baan arday ka dhignay waxbaan barnay waxa way gobollo kala duwan bay tageen waxa soo laabtay dad diaspora ah marka alxamdulillah qulooda hadda waxay gaadheen heer in anaga nahagaan oo dhahaan noocan iigu mari marka alxamdulillah rabbil caalamiin hadda waxaan leeyahay guushii aan doonaynay ayaan joognaa hawshina waa si fiican baan noogu socotaa gobolka Dardar aad bay koonfurada hadda u soo bateen maadaama la fahmay inay noqotay meelaha ugu faa'iidooyinka badan meelaha ugu quruxda badan gobolka hadda waxaan taaganahay heer inaanu la tartano gobollada naga waaweyn sida Garowe Hargeysa oo kale aanu dhinac istaagno ganacsigu sidiisaba uu iskaaba koonfurada badan baa magaalada ka jira oo isku xirfad yihiin dhammaantiin dadka wada qurxisaan xidhiidh dhow ma leedihiin koonfurada magaalada ka jira maadaama ganacsigu aad sidiisaba uu iskaaba runtii xabiibti haddii aan kaaga warramo xagga isdhexgalka ganacsiga oo waliba dhinaca koonfurada runtii anigu ma diido waxaan jeclahay koonfur kasta inaan soo dhaweeyo waxa weeyaan koonfurada laakiin magaalada walow aysan aad u fara badnayn haddana dadka anu markii aan wadanka imi waxaan markiiba bilaabay inaan shaqo bilaabo oo shaqo galo runtii koonfurkan aad ugu badanahay oo gudihiisa aan joogaa ma aanan u bixbixin meelo oo koonfurada kale ma aanan tagtagin magaalada xitaa bixbixitaankeedu ugu yareeyo waxyaalaha ka aniga alaabta banaanka iga timaada taasba waxay keentay in aanan xataa wada shaqaysi yeelan ma aanan arag wasaarado xataa waxa weeye xagga ganacsiga dadka isu keento oo waxa weeyaan xiriir noo samaysa ama dhalinyaro isku kay soo xidhaa laakiin nacayb dabcan ma dhexyaalo waxa weeye laakiin qof walba waxa mashquul uu ku yahay shaqadiisa aad baad mahadsan tahay Firdaws maadaama aad tiri waxdee nagama dhaxeeyaan saana tartan ma gashaa xagga shaqada waan ognahay marka meherad la furo inay la tartanto meheradaha dabcan wax kasto oo ganacsi kasto la yimaadana wuxuu keenaa tartan iyadoo xumaan jirin صراحة أن ترتموي جيران tartamadaas oo ay kamid tahay qof walba kale wuxuu jecel yahay isaga inuu magac yeesho maxay ahayd walow aan leenahay system san u soo kala horeeyay inaan soo ixtiraamno kofarka hore uu ixtiraama mana jecleen kofarkii naga horeeyay aan la tartanno laakiin waanu jecelnahay inaan qudayada soo baxno oo magac fiican yeelano marka taa qudayada waxa weeyaan waxa jira kofarro naga dambeeyay kofarro naga horeeyay kofarraan mar wada furnay marka way keenaysaa anaga batartan ku jira hadana qof walba wuxuu jecel yahay inuu magaciisa gobolka uu kamid ahaado inuu asxaab iyo customer lahaado customerkiisa qudaysu inay ku qanacsan yihiin inuu customerka kale marka uu helo ay isu faani karaan oo waxa weeye aysan kala maxay dheerayn marka run ahaantii anaga lahayn tartan dheeraad ama galnaa hadana waan jecelnahay inaan nala ka magac sarreeyay magaalada waxa ka jiray koofeero badan oo shaqooyinka ay koofeer qabto intuba ay qabtaan maxaad is leedahay magaalada wad ku soo kordhisay ama koofeerka alkhwaad koofeerada kale uu kaga duwan yahay maadaama aad ka timi wadan shisheeye ee ognahay wadamada shisheeye inay wadankeena ka yar horumarsan yihiin xagga qurxinta iyo xagga qalabkada صراحة waxa jirta hadii ay dhahdo waxyaalo aan kaga duwanay horta markii ugu horeysay aanu nimi qudheedo iyo hadda ban isku wacyi ahaan makeup-ka qudhiso mar walba casrigu keenaa maanta waxaan oran karaa magaalada markii ugu horeysay waxyaalo aan ku soo birnay waxa kamid ahaa makeup-ka oo midab gabdhuhu ay leeyihiin inaysan aqoon jirin oo aysan marsan jirin tii inaan markan anana soo bandhignay koofeero kale cusub yimaadeen waxa weeye koofeerada hore nagu daydeen oo ay tii ay noo fushay ما شاء الله عدبان محيطي ugu bogaadinayna hablaha iyaguna nala qaatay taaniyan waxa koofeerkaygu gaar ku yahay waxyaalaha dabiiciga ah ana runaantii wada aragtaa buni baan hay ma isticmaalo waxyaalaha kiimikada ah mana jecel habluhu inay isticmaalaan maadaama aan shaqooyin fara badan galno waxa dhici kartaa waqtiyada qaar kood inaanu shaqeyno muddo 14 saacadood aan sikin waxa weeye inaan shaqo ku furno mooyaan chance helin taas baa wax noo kaliftay inaan kiimikada awood u lahayn inaan isticmaalo markaas waxaan sameeyay hablaha waxyaalo dabiici ah inaan u sameeyo waxa la yiraahdo maqmal alcaruus oo wax dabiici ah waa Suudaani waxa jira maqmal abyad isaguna waxyaalo isaguna waa tadmiir fajisi oo caruusadaha la mariyaa isagana oo gabadha jirkeeda soo saaraya wuxuu haynayaana loo ballan qaadi karaa 14 cisho in gabadha jismigeeda inuu isbedelin oo tabtiisa hadda ka baxan oo sidiisa ahaado caruusadaha waxa weeye waxa jira maqmal isagana maxay la yiraahdo isagana asfar isagana waxa weeyaan sida marka aad doonaysid adimada oo kale wad aragtay yaana marka lugaha iyo gacmaha way ka shaqo badan yihiin jismiga kale oo inay dabashan ugu leeyihiin
waxyaalaha loo isticmaalo iyadana maxay ahayd Taiwan iyadana hablaha badana way isticmaalaan sida ardayda qalin jabinaysa waqtiyada cilaanka marsanayaan aad bay u isticmaalaan gabdhuhu marka waxyaalaha aan isleeyahay wad kaga duwantay waxyaalahaas kamid kale wax kale waan ka wada simanahay shaqooyinkan iyadoo kale ay isku mid ah loo kala xirfad badan yahay laakiin waxyaalaha gaarka ku ahayo aniga caanka aan isleeyahay ku firka ku yahay cid kulma wadaagtaa waxyaalahaas kamid ah سو فريقه عادي قاري اوكي انه اسمه بلو مثال كانوا فدين دها اوكي aad baad u mahadsantahay fariintaada ugu dambaysa oo aad bulshada u dirayso maxay tahay صراحة فرنتي أود بس برشة عليه هرتها برشة قبل كسل وحن ليه هي هرمرك قبل كهلا شقيه واللي بدل يرضى إن هرمرك هو بالعدينا والشرفتينا وقيمهنا وحويا من دمان قبل كيني كوكل صون هذا قبل كينا وحتى لأن يرى بدن قبل كذا كوكل صونين كنت أنا أنت قبل كودك كتجي بان أصولابتي أنا أضاف لي وضو بان كسل جري حق كسل وحويا اسمه هدلك هذا ملك في عبتك ساعة وحويا لأن يرى بدن فكرة إلى قبتني نشتوان ملاينا يا لأن يرى هرت دلكينا أقل اللي واللي قبل كينا صول كوكل صون هذا هرمر قبل كينا أسمية قرحية قبل دينا وحويا وحيلا السكر لسان وحاتي لأن يرى بدن عن أض فرين قدر ياها بلها كوفير هذا سمية أو فرق هدنا بربري وحلاقي هدلقات سمية كوفير هذا هدنا سكر لسان هنا كبربرينا وهرمر قبل كينا إذا كانوا حلاقي هرمر ونكسن من دابا وبدان ميديا هاي ميديا عصب حدنا أسبوع بين مقلي مجلس سنة ما شاء الله عاد بمضى حاجة وبطي لكن حلاقي يمكن هرمر ونكسن قبل كان هالك كلاسي هاي والسلام عليكم ورحمة الله. يوم هتصنت هاي فردوس أحمد عمر أو مانتا برامج كه جناعسية مرتي إنه عايد barnaamijka xogaal oo toddobaad walba aynu ku soo qaadano ganacsiyada kala duwan toddobaadkan waxa marti inoogu ahayd Farduus Axmed Cumar oo kamid ah gabadh dhalinyaro ah ganacsatada ah ku haysata magaalada Laascaanood beauty salon ama coiffure barnaamijkeena xogaal intaynu barnaamij la mid ku kulmi doono waxaynu kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo